بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaan marar badan soo sheegnay in warka ugu fiican oo la jeediyo uu yahay kan si tartiib ah loo sheego لأنه العجل دقدق وحو شيطانك في عنا معها واقرت marka caawa shaqadaan qabanayno waxay noqonaysaa shaqo aanan u baahanaanin in loo cudur daaro sababtu maxay tahay ayadaa isku cudur daaraysa waa gartay shaqo walboo fiicanna inay wax fiican tahay gadaal baa lagu ogaadaa waxaa kaloo la ogaan karaa markay socotana waa la arki karaa waa iska cadda laakiin cudurdaarku gadaal uu ka imaanaa marka la wadana waa iska cadya waan gar marka waxaa la yidhi camalka dunuwiga ah oo shaqada iyo marwo qurux badan oo ku jecel adiga jecel inaad heshid siyaasadda axwaasha noocaas oo kaleeta ah linafuuz fiiha waxaa u baahan tahay xikma murtiyad u baahan xataa diinta islaamka inaad horay u marisid waxaa u baahan tahay murtiyad u baahan ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بربارية هاجا أما إله هاجا ودديس ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة سببت ومحي مرتوى وما هي الحكمة مرتوى وحال مفسرة إن يتعي وضع الشيء على محله أحول بين بأس قضاء أما باللغة العربية الحكمة حريرنا لهذا حي حكم يحكم يحاكم هي الحكومة وقيسو قعان موجود وحال لي هبل هو الدنبيل ذرفوها لدلو سلاح ذرفوها لدلو هبل حي وننفي عن حي العكتاس هلا سيو هبل حي ووزير هبل حي وزير المدى ولا قاعد هبل واسداس هبل سدان معها الحاكم ninka maxkamadiisa markuu fadhiyo hebel iyo hebel waa gardaran yahay hebel iyo hebel waa garu leeyahay mujadna alxaakim saas diinta islaamkana waxaa sal u ah aayadaha qur-aanka oo kaleeto markii laga hadlayo waxaa leeyahay fiihunna macnaha aayadaha qur-aanka waxaa ku jira fiihi muxkamaatun wa mutashaabihaat kuwa kala go-an oo iska cad ya qur-aanka xataa marka qaar waxaa leeyahay alfurqaan kii kala saaraya lida arrintu saan waaye saan ma waa xikmadu wax la wadaaga ama alxikma ama alxukm waa gartay marka waxaa la yidhi qur-aanka waxaa saldhig u ah muxkamaadka waxaa la yidhi hunna umulkitaab kitaabka qur-aanka kariimka waxaa saldhig u ah hooyo u ah ya caasimad u ah umul qura markii la yidhahdo waxaa laga wadaa caasimad aayadaha dhahaaya warku waa sidaan hayisaas maha oo qora mutashaabihaat kuwa kale isku agagaa jira oona kala sooci karin sida caadiga laakiin waxaa kala sooci kara ilaahay laa yaclamuhuna ila allah waraasikuuna fi lcilm iyo kuwa cilmiga ku xeel dheeraaday لكن كوكل أو حاجر اسكت ديايا وأما الذين في قلوبهم زيغ فهذا تهنا كجرة شكيا كجرة وشكسين مجدا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة من ابتغاء الفتنة بحي اسكو كاي دبر دغنايا ايغو رادينايا اني شد دبات ابوران اما ايغو حتى اسفتنيان مجدا يو ابتغاء تأويله وعز ليهن قدية وفسرت مجدا لكن هدي
ku dhagaan umul kitaab muxkamaadka hadii bas warku waa dhamaada muxkamaadku waa kala go'an yihiin shaki ma jiro diin islaamkana waxyaabaha aad ugu dadaasho waxaa kamid waxaa laga cararaa shaki waadna alla tartaabu wax qoraa la yiri sida tafsiirka ku soo marnay الدين مرات كهذاتين قرا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم جناح اسكسر وريجاي أو حد ماشي تكون السوق أو ذي تسكن مركا محكماتك أم الكتاب نلاش هذا عادي أنا واحد أركي كرتا مركا جورسيني سدو جودون تاعها ka baran kartaa dumarka qaarna waa muxkamaad ay ku yihiin waa xataa warko gabadhan waa ka helay iyadan waa iga heshay bas waa isku ogahay in nolosheen inta ka dhiman aan nolol fiican ku noolaan karno waxyaabo kale iska soo bixi karaan laakiin waa ku kalsoontay muxkamaad waa kuwaas kuwana waa mutashaabihaad oo hadda kama rabna aayadaha quraanka iyo dumarkana isku barbarigna laakiin waxaan ka wadnaa aqoonta oo xikma موضوع شيء على محل وحى مركز تفي عن قرأتي شكل وكعبه وعارف ما لا بدنا أو استعمالي كرتي يا مركز كم وضنو دوما كانوا مشرفين واي إلهي بعبورتي أيضا قرآن كانوا مشرفين واي إلهي بعبورتي لكن معناه عن كبرنا وحبا كبرن كرتا يا امرأة صالح وحو نفسنا دون كل هالواي مرأة صالح قول إني ننفي عن هذا شو حدون موفي عن أي كميت هاي فهمت أنا ملايني مركز دوما كانوا كحاجر وكوا إسكعده يكون شكي كاجي marka kuwa shakiga kaaga jira hadda dabadhigtid gabadhuna kan shaki kaaga jira dabadhigtid horaan soo sheegnay waxa ka dhalanaysa waxa la dhihi karaa waxay raadinayaan shiday raadinayaan dhibaato iyo inay wax gadgadiyaan rabaan inay wax gadgadiyaan oo fasirtaan inaan ogaada ay saxaas ku jira marka waxa la rabaa in iska aadaan meesha muxkamaadka iska caday gabadha kaasha idan kaasha kuwaas kara شكل مكوش وحتى دينته حديث الصوري وعليه دع ما يريبك وحشوك كشك الجلي سكت إلى ما لا يريبك وحنا كشك الجلينين انتك وأدنى ألا ترتعبوا من جدا قرآنك وهذا إيمانك ورنصتي إيمانك وحاول رنصشه من جدا حات رنصتي إنه إلهي يجرو وحات رنصتي رسوش إنهي ورسدياش إلهي إنهي ور ربع وذان waxaana dhahnay wadiiqada loo mari karo oo wadiiqad xikmada laga baran karo iyo falsafada culuumul falsafa oo dhahay iimaanku wuxuu sal dhiganayaa marka hore inaad adiga dadaal la imaad quraankan waa noo sheegay xikma oo maxay marka hore ada aaminay oo dadaal kale iimaanay waxa leedahay waa anna naara xaqun wa anna jannatu xaqun ilaahi waajira rasuulkiisa waajira warsidayaashu waajira la nafarqu bayna ahad min rusuli amanna wa arsalnay markaas ilaahi waxa waa ilaahi marka waxa leedahay ilaahu marka sababihi runsashadeeda ku sal dhigan lahayd يا إلهي وقت سأقول بلنقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم نفتي لحظة أن كتسينا يجهوين واقرت مركو حندهني شغل عاوان قبنا إنه وشقو أن أيضا درتت وقبنين ujeedo ka baxsan qabashadeeda ma jirto marka waxa la yiri shaqooyinka noocaas oo kala taa oo isan jirin qarad ayada aan nahayn inaan loo wadwadin agenda kale oo isan jirin agenda free ya shay mustahab jiddan waxa loo caashaqo حتى markii qofku uu wax dana gaar u san wadan dadku waa jecel ay waxaas waxay ka fiican yihiin wax oo ujeedo kale loo sameeyo laana waxaas la wado sababtan waxaas la wado hadii ujeedo kale loo wado hadii ujeedadaas ayaa ka khayr badan in laga hadlo ya qof macnaha liajli lacag inuu helo u hadlay يعني العكس كم مهم سنة أساسا سوما يورك وراء دم يا وكذا فهو حلين ورنيك العقل اللي وراني ماشي سواء جوج مجرت مك العقل وروانا العقل وحيسته يا مك حواي لأجله
marka aniga ma jirtaa wax oo iskood in jeclahay inaan u qabto su-aal waxay maanaysaa waxa haddiiba aysan jirin ajenda laga leeyahay haddaysan jirin sidee ay ku waafaqaysaa in wax walba loo sameeyo ilaahay dartiisa inaan ogaano waaye waxyaaba waxaa jira qofka uu samaynayo asagoo oon u samaynaynin isagoo u samaynayo sabab kale saan ahana qofbaa shaqa uu aadaya shaqadaas wuxuu uga shaqeynaya inuu lacag ka helo ama safar ayuu galayaa si uu gabar usoo guursado ya faman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha ya marka qofkaas ma waxaa la dhihi karaa mushrik waay oo ninkan magaalada wuxuu uga safra magaalada soo aadana gabar soo aroos u aada wajadaas uu kaliya ama wuxuu ka leeyahay inuu maaragtay allahuma salli ala sayidina maxamed gabar soo guursado ama lacag bicshaaro inuu soo kala gedisto waxaa leeyahay war ninkaani waa mushrigo waxaan ilaahay waxbuu wadaa uusan u wadin ilaahay dartiis miyaa la dhihi karaa lama dhihi karo ya lama dhihi karo lama dhihi karo waxalla allahu albayca waxarama riba ilaahay asagaa fasaxay wuxuu yidhi wax oo bicishaaro safar waa u geli kartiin noloshiinaad ku dabaran kartiin ilaahay bal waaba idin maaragtay waxalla allahu albayca waxarama riba mujid marka waa wax ilaahay u baneeyey waaye in qofku uu cajalad iska duubo asagoo ka hadlaayo arrin uusan wax ajenda ah ujeedo kale kama leh aanan ka ahayn warkaas in la sheego marka waxaa imaan karta su-aal kaleetoo dhahaysa waayo haye soo lacag marabta inaad ka heshid meesha maya waxaan ku eri ujeedo hawshaan la qabanayo ka baxsan ma jirto tusaale ahaan oo kale hawshaan looma qabanaayo inaan lacag ka helno waa garta ujeedadu taas maa waa tusaale ahaan oo kaleeto nin waxaa jira gabar guursanaya aya marka waxaa la dhihi karaa war ninkaan gabadha wax ujeedo ah oo uu gabadha u guursanayo haba yaraatee ma jirto aan ka ahayn gabadhaas inuu guursado gabadha muxuu u guursanaya marka jacayl u guursanaya hada ujeedada marka uu leeyahay ninkan waa cishq waay marka annagana waxaa la dhihi karaa ujeedada aan hawshan u qabanayno waxaa waaye cishqun aan u qabno xubbi aan u qabno ilaan falsafadu waa sidaas xub ulxikma waxaan maxaa u samaynaysaa cishqi aan murtida u qabno waay ya murtidana maxaa la yidhi waman uutiya alxikmata faqad uutiya khayran kathiiran marka maxaa la dhihi karaa ujeedada caawa aan halkan ka wadno waa arrin khusaysa cishqiga aan u qabno ujeed marka hadda lama dhihi karo waxaa dood ka imaanaysaa warkeennii hore aan sheegnay oo ahaa hawshaan aan wado ma jirto ujeedo laga leeyahay aanan ka ahayn in ayada la wadwado wadwaditaanka la wadwadaayo ayaa ah sababta loo wadwado ma jirto sabab kaleeto ka baxsan laakiin taa macnaheedu ma ahan inay jiri karin because jiritaanka wadwaditaanka hawshaan loo wadwado ayada darteed ya ayaa of necessity si waajib ah waxaa jira duruuf oo sababo kale oo ka dhalanaya marka lama dhihi karo sababahaasaad ka wadaa lama dhihi karo barsaanahaan kale kaasuu qaaday roobka markuu do-o haddaan 2,000 xabo oo raqiis ah oo tayo fiican lah oo maaragtay bahashan dalada aan keeno roob daran u do ma waxaa la dhihi karaa war ninkan asagaa roobka keenayoo wuxuu rabaa in laga gato daladihiisa lama dhihi karo ma keeni ninkaan roobka حتى هذا السينسيهن هاي عرق إيروبك وحاس دراسينا لما ديه كر لما ديه كر سجى روبك كيانه وحور ربعين لقى قطه لما ديه كر يا مركا واساس وكلاته أو يعني أنا هول باموتنا لكن وحجر كرته وحيابك كلاته أو لا ديه كر ورنا كان وح ولا وحاس ولا أي لا ديه كر لكن هذا وحاس وح أو unintended consequences اللي هذا يعني لوجا مدن لهين لكن هدي كدعوا وخير هذا برسيم يقول هدي أي دعوة إن العق فرا بدن ضد بدن أنت دعوة ضد بدن دقيستان أقوان كقرصدان
ama caashaqaan warkaan oo aniga markaas youtube markii la geliyo youtube-ki ilaa jack isoo dira lacagtan aad heshay waa khayr waay laakiin ujeedka isaga maaha ya waxyaabaha aan bartoo kale waxaa ka mid marka qaarkood markaan hadlayo hadalkayga waa cusleeyaa waa adkeeyaa markaasoo waxa waaye markaan taas ogaaday marar badan waa iska qabtaa anoo sameynaya taas waxay ii sahashay inaan ka hortago madax xanuuno fara badan oo igu dhici lahaa warkayga hadduu yahay war qabow oo degan oo maaragtay habaysan oo aan dheerayn gaabnayna waxa waaye anigana dan u yahay dadka dhegeysanayana daadan u yahay qowlun xasan oo war qurux badan oo waaga marka arrintaa inaan halkaas uga gudubbo ayaan rabaa laakiin waxaan yaabaha aan aad ku jeclahay waxaa ka mid ah aljadal dooda iyo murtida marka waxaa la dhihi karaa udcu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan ma la dhihi karo marka waxaad u wadid waa inaad dadka ilaahay wadadiisa ugu yeertid adigoo adeegsanaya murti iyo dood wanaagsan khaasatan dooda tan ugu wanaagsan wajaadilhum bilatii hiya axsan الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه وركض كدغيسانيسا كان فيعن كان ugu fiican ka qaadaysa hawlaha soo kuma jirtid ayaa la dhihi karaa fiiri waxaas oo wax ka ratib ma laakiin anaga hawshan aan wadno waxaan u wadnaa cishki aan hawshan u qabno marka haday saa tahay cishki aad u qabtid hadii aan u wado hawshan waxa la oran karaa markaas ujeedada aan waxaan u wadid waa caashaq iyo cishki aad u qabtid saarahan kala gabadh ayaad guursatay waxa lagu war gabadhan maxaad u guursatay markaas waxa tiri cishki ayaan u guursaday cishki aan u qabo ayada ayaan guursaday markaas waxa lagu dhigi karaa waa yahay cishkiga maxaa kalifay ya cishkiga maxaa kalifay oo gabadhan u caashaqday ayadana ku caashaqday marka waxa lagu fasir karaa marka cishkiga ayaa naftiisa ayaa sababtu tahay sababta aan gabadhan u guursaday waa cishki sababta cishkigana waa cishkiga naftigiisa waa cishkiga jira saasan u guursaday marka ma la dhihi karo war sababta cishkiga muxuu yahay waa cishkiga naftiisa marka waxaa la dhihi karaa hawsha awadid ajenda la-aan ma aha ajendaheeda waa cishki marka waxaad wadid waa xub ulxikma cishki loo qabo xikmadda ayaa hawshan aad wadid ka mas-uul ah haddii marka warku uu sidaas yahay ma dhihi kartid hawl waxaan wadaa aan u wado ayada darteed ha waa dhihi kartaa gabadha markaan guursatay maxaad u guursatay cishki oo maxaa u caashaqday cishka dartiisaan u caashaqay ya so jacaylka ayaa wuxuu yahay qodob sharaxaya guurkiina oo jacaylka maxaa kalifay asagana sabab waa inay jirto asaas kalifin ma jirto sabab badan ka baxsan banaan marka haddii cishkiga uu yahay sababta gabadhan aada u caashaqday ama falsafada u caashaqday waa inay jiraan sababo waa sax sababahaas tusaale ahaan oo kale waxaa la yidhi waxaa lagu dooday oo la yidhi cishki waxba looma guursado ama cishki shaqo ma looma qabto mucaashaq inaad noqotid meesha ku jirta maaha marka in dadka la tuso in cishkiga uu yahay wax fiican waxaad caashaqsan tahay oo shariicada islaamka dhexdeeda mubax ka ah bisama ganacsiga jecesha inaad ganacsatado kale in la tuso falsafada inay yihiin alxikma wax fiican inta ay waafaqsan tahay shariicada islaamka iyo qawaacidka mafhuumka islaamiga ah جماهير المسلمين تاعي ولا اعتراف عيان انت وافق سنتها دي كسور جزء تو وركله ابانت المالين marka waxaan jeclahay inaan u cudur daaro oo dhaho cishki dartiis wax waa loo wadwadi karaa justification project loo cudur daaro intaas leeyahay waxaa kaloo ayadana jirta